qof kasta oo nooli nolosha waxa ku weheliya riyo iyo rajo la kulanka nasiibkuna ma aha wax qadarka alle ka baxsan sheekooyinka la xiriira waayaha qof kasta ayaa shakhsiga ka dhigi kara sida shimbir qalin ah كل وريه هذا مكاس مالنتاس أو فدي وريها فدي أحمد عوكي وهاي وحيري أرض بدنا ما فرس باويري حق بدنا ما شبل باويري الله إله شباب هو أمنا ياسر ورابي لو ما بقدها كفر جوال باي ragga taariikhda lehna marna qalin dahab ah ayaa lagu qoraa marna baal dahab ah ayay galaan taariikhda kooban ee imika aan idiin sido dadkii soo liqay waayihii hore ayay xusuus u tahay dadka imika jirana waxay u tahay ogaal iyo barasho sheekadani waxay la magac baxday waayihii Lumumba halkani waa Baraawe cid kasta marka ay maqasho Baraawe waxa ku soo dhaca waayihii ilbaxnimada ay kaga horeysay magaalooyinka kale ee ku yaala Soomaaliya hayeeshee doorka aynu ka waramayno imika waa shakhsi gaar ah waayihiisa Lumumba magaciisa dhabta ah waa Aways Maxamed Nuur Abubakar hayeeshee magaca Lumumba waxay soo ifbaxday wixii ka dambeeyay 1984 xilligaasoo uu noqday xidig ka dhex muuqday cayaarihii gobolada dalka waxaana taageerayaashii gobolka Shabeellaha Hoose xilligaasi ay u riyaaqeen qaab ciyaareedkiisa ayagoona oo la baxay magaca Lumumba waxaana halkudhigyadii ay ku dhawaaqi jireen kamid ahaa Lumumba ma dhiman mana noola ka hor inta aanu ka mid noqon xulka gobolka Shabeellaha Hoose waxa uu ahaa xidig ka dhex muuqday cayaarihii ka dhici jiray degmada Baraawe ka oo ay ku loolami jireen xaafadaha ay degmadu ka kooban tahay Lumumba wuxuu ahaa ciyaaryahan ku dhashay degmada Baraawe oo ciyaar ku bilaabay waxaan xasuustaa oo ku bilaabay meeshaan la dhigi jiray Heershiino dayax xaafadda dayax gaar ahaan Magagooni ilaa Heershiino ayuu ku bilaabay ciyaaraha markaas garoonka caalamiga intuu soo galay oo degmada markuu meesha ku ciyaari jiray kadib oo in muddo aan anigana tigay ku jiraan la ciyaari jiray Lumumba dib waxa loo xulay xaafadda dayax inuu ciyaaro naadiga Serie A ee xaafadaha ka dhisan degmada Baraawe saan waxa xasuusto Lumumba qiyaastii 1985 ilaa 1986 ayuu ka mid noqday ciyaaryahanadii loo xushay inay matalaan xulka gobolka Shabeellaha Hoose 1980 ayaan xasuustaa in laga qaaday degmada Baraawe asaga ciyaaryahanno badan oo ka mid ah Sidi Cheek asaga Umar Mario ilaahay hu naxariiste Mario Abashaacir شاعر جاب هذه عياري بدن إن شاء الله معنا سانتوني أو كلا سيدا أو كلا جول هاي أسينها مركي كدب Lumumba أيو ستوس مركز أيو حكوا هارين عياريها حلك إسرائيل جوهر قبض الوقت جوهر الوقت سدح بالعلامات آخر سدح بالعلامات مركي خاري بعد وحابة عيارته وحال بلاوي عيارها أقوله قوله مركي كبلاوي سديتون إسدح دي عند عياري waxaan ka soo baxay ciyaar aad iyo aad waafiican tahay Lumumba waayahan dambe waxa uu kaalin ka qaataa sidii uu u soo saari lahaa ciyaaryahano cusub
aad meeshaan ugu jeedeen waxaa jiray training aan sameeyno subax walba oo si joogto ah aan u sameeyno sidaa ay tahayna waxaan haysanaa macallin caan ah isla markaana ka soo ciyaaray meelo kala duwan oo Soomaaliya ka mid ah oo aadna loo yaqaan macallinkeena Lugumbe khayr Allah siiyo hadda kama uusan fadhiisan ciyaaraha wali waa ku jira sida aad u jeedaan waxa saaki tababarka lagu siinay magaalada Baraawe biishkeeda markastana sidaas ayuu heega noogu yahay waqti kasta waxa uu jiif ka soo kacaa salaad subax markuu dukado kuma laabto ilaa gobolka uu ka dhacay waxa ku jira sidoo uu soo saari lahaa ciyaartooyda da'yar isla markaana isboortiga Baraawe ee iloobay oo mataqaana aan waxba loo qabanaynin oo sare u qaadi lahaa anagana moraalkeena ma jabin ninkan waxa la yiraahdaa Fuad Maxamed Nuur Abubakar waxa uu noqday shakhsiga labaad ee ka soo baxa qoyska Lumumba uu ka dhashay waana da'da ka yar Lumumba kolka dadku ay u bogeen qaab ciyaareedka uu la yimid Fuad iyo inaanu ka sharyareen walaalkii ayay dadka xagoodii ka noqdeen qoyskii kubadda aniga hadlay Sheekh Fuad aniga ciyaarta goolada waxaan bilaabay 85 Lumumba wuxuu ahaa 83 laba sano ayaa naga horeeyay marka aan 85 aan tagay koo waxaan tagay El Jale college-keena El Jale marka waa ka soo baxay El Jale waxaan tagay Johor ciyaarta meesha la qabtay sanadkaas waa soo laan 86 aan tagnay 86 aan tagnay totolaar ayaan adhay Lumumba wuxuu ahaa gool dhaliye wanaagsan oo marnaba aanan ka raja dhigin inuu haraatiro shabaqii oo manaha ahaa Lumumba wuxuu noqday ciyaaryahanka ugu goolasha badan sanadkaas Lumumba farxad weyn ayuu dadka u soo hoyay heer shabeellada hoose gaar ahaan degmada Baraawe Lumumba waxaan la iloobi karin inuu ku sameeyay garoonka Stade Muqdisho kulli wariyihii hadda markaas maalintaas oo fadhiyay wariyaha fadhiya Axmed Cooke oo ahaa dadka totolaar ahaa jiray فو عبد القادر نيكل هراهدو صح ودغنيا افغوي صح نمبر 2 باران صح نمبر 3 عمر عبدو صح نمبر 5 واسيد تشيك عبدلو نمبر 4 عبد القني adiga hadda meel kasta oo baydho waa tagay iyo Kismaayil waa tagay waxaan jeceshaa inaa Baraawe noo imaado inaan ku arko Sheekh Fuad runtii rajo weyn ayuu ka lahaa inuu ka mid noqdo xulka qaranka Soomaaliya laakiin nasiib darro xilligaasi cid kasta oo rajo iyo rayaba lahayd waxa soo wajahay waayo dambe oo muruga xambaarsan shakhsi kastaana oo xilligaasi dhashay oo aan anigu ka mid ahay hooyadii xanuunka foosha waxa uu heliyay qax iyo dhib umusheedina nafaqo ma aanay helin waxana xilligaasi ay ahayd waxay ka dambeeyay 1991 riyo iyo rajo kaliya kuma baabi'in waayadii mugdiga waayo waxa aasmay boorarka cid kasta oo taariikh ku leh dalka